wasiirkii hore madaxtooyada xirsi wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada Cabdi Aw Daahir xildhibaan waabeeyo oo ah gudoomiye ku-xigeenka xisbiga kulmiye xildhibaanada kale salaadiinta cuqaasha madax dhaqameedka haweenka dhalinyarada bahda saxaafadda waxaan idinku salaamaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh halkan marka hore waxaan tacsi aan ka dirayaa labadii inanee shalayto shilka gaadhiga ku dhintay waxaan leenahay ilaahay samiriyo iimaan saadiq ah inaga wada siiyo dhammaanteenba uu ka dhintay gaar ahaan waxaan tacsi u diraynaa qoyskii iyo qaraabadii iyo ubadkii ay ka geeriyoodeen waxaan leenahay samiriyo iimaan saadiqa ilaahay ha inaga siiyo iyagana naxariistii janno ilaahay ha ka waraabiyo dhammaanteen marka hore anigu Saare Maxamed Xuseen waxaan ahay xubin golaha dhaxaa Hargeysa waxaanan ka mid ahaa isbahaysiga kulmiye ee dimuqraadidoonka iyar haddaan ka taabto sababta isbahaysiga nagu keentay annagu waxaanu nahay gruubkii watay musharax xildhibaan Axmed Kajaandhe oo u soo sharaxay madaxweyne annaga si gaara ayaan maanta reer Burco iyo reer kulmiye iyo reer Somalilandba ugu taabanaynaa wixii naga qabsaday kulmiye ee aan musharaxiinta kale ee sharaxnayd hadday ahayd Maxamed Biixi Yoonis iyo hadday ahayd Soomaalida aan ka qabsan annaga si gaara ayay noo saamaysay waxaanu doonaynaa maadaama aanu nahay deegaanka gobolka Togdheer inaan ka sheekeeyo wixii halkaan naga dhacay annaga annagu markii hore waxaanu ahay kulmiye waxaanu ahay asaasayaashii kulmiye saddex dheri buu ahaa saddex dhardhaar buu ahaa saddexda dhardhaar ayaanu qayb ka ahayn waxa aan la ogyahay oo Somaliland iyo reer Somaliland ba og yihiin Axmed Kajaandhe iyo beeshiisu inay markii hore wada ahayd kulmiye oo aanu ahayn dadkii hiil iyo hooba la garab taagnaa madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland soona saaray codka ugu badan siiyay baanu ahayn runtii sharaf baanu ku siinay maamuus baanu ku siinay maamuuskii iyo sharaftii iyo qadarintiina uu naga mudan yahay madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo waanaanu garab taagana laakiin markii aanu nidhi musharax baanu wadanaa oo waanu isa soo sharaxaynaa waxaa naloo diiday inaanu isa soo sharaxno waxaana nala yidhi laba dhardhaar buu kulmiye ahaa labadii dhardhaar baana qori dhiibka isu dhiibaya ee idinku kuma jirtaan runtii horena waan uga hadlay reer Somalilandna waanu sheegay markii dambe ee shirkii golaha dhexe uu dhacay ee uu Muuse Biixi loo afduubay ee aanu annaguna ka qayb galay annagoo musharaxa madaxweyne ku-xigeenka markaa wadana oo doonayna haddaanu isbahaysigana inaanu madaxweyne ku-xigeenka aanu ka dhigno bari oo xagla toosiyo noo sharaxnaa oo afduubkaana lagaga qaado shaashadaha ka daawanayseen karaantuuntii lagu guray mid kalena aanu nidhi laba nin oo galbeeda oo midna gabiil yahay midna boorama yaho 10 kilomitir isu jira madaxweyne xogeen isuma noqon karaane annaga Siilaanyo markuu bari ahaayeen madaxweyne noo ahaa galbeed baanu siinay madaxweyne ku-xigeenka oo aynu si sharaf leh ku taageerno ku siino war bari nagu siiyo madaxweyne ku-xigeen bariya ha qaadato gobolada bari oo dhammaha ka muuqdaan shaashadana dad badan oo tirsanayo gobolada bariga Buuhoodle Sanaag iyo Togdheer ay lahaayeen goboladii bari baa ka maqan ayaanu lahaynaa ku soo dhaweysaan oo ku soo jiidaan oo aanu codka siinaynay laakiin nasiib darro waana la aftuubay wixii nagu dhacayna tashaashada TV-ga waa ka arkaysay Muuse Biixi markuu yidhi ilmaadeeraday ayaan halkaa ugu tagayaa oo aan raali gelinayaa oo aan soo bareeyaa annaga naguma darin talada oo mu oran Axmed Kajaandhe musharax buu ahaa taana Somaliland bay u taalaayo annagoo 5 gobol degna oo Togdheer iyo Oodweyne iyo Saaxil iyo Maroodi Jeex iyo Hawda ayaa nala ku yidhi
musharaxnimada kulmiye reerkaasu shaqaba kuma loo dibadda nala ka dhiga waxaanu la garnaqsanaynaa oo aanu maanta la garnaqsanaynaa musharaxa madaxweynaha Axmed Maxamuud Siilaayo togdheer buu ka soo baxay codkana reer togdheer baanu siinaa waxaanu doonaynay oo aanu rabnaa dimuqraadiyad waxaanu doonaynay saddexdii dhardhaaraynu ahayn inaanu kaayagii qaadano maanta oo qoridhiisu dhiib ahayd waxaanu aaminsanahay inaanu annagoo ka tirsan isbedel doonka dimuqraadiyadda ee kulmiye waxaanu aaminsanahay ninkaanu maanta raacnaa inuu soo baxayo markhaatina waa nooga tiid isbahaysigu maanta wuxuu inoogu yimid taladaa maanta halkaynu marayno annagu weli waxaanu doonaynaa dimuqraadiyaddii xusbiga in walaaltinimo lagu soo celiyo kulmiyaanu nahay gacmahaynu weli isqabsanaynaa haddii taasu dhici weydo isbedel doonka iyo reer togdheer way tashanayaan waxaanu leenahay waxgaradka togdheer meeshii aynu mari lahayn hanugu hogaamiyaan taladana reer togdheer baanu u dhiibaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu